waxaa deeq lacaga la gaarsiiyey masaajid taariikhi ah oo ah masaajidkii ugu horeeyay ee laga dhiso gobolka Sanaag gaar ahaan magaalada Garadag oo noqonayo masaajidkii ugu horeeyay laga dhiso masaajidkan oo ah masaajid ka caan gobolkaasi iyo degmadaasi Garadag ayaa waxa lagu sameeyay dawahabeyn waxaana baaqi ugu horeeyay ka soo yeeray urur lagu magacaabo Geyda oo ka dhisan deegaankaasi ururkaas oo urur muddo kooban jigay wax qabad fara badan ka sameeyay deegaankaasi ayaa dhawaaq dheer ugu baaqay bulshada in wax loo qabto masaajidkaas oo lagu sameeyo dawahabeyn markiiba ka soo jawaabay jaaliyadaha ku dhaqan dibadda ee u dhashay degmadaasi oo u soo ururiyay lacag dhan 2447 haddaba lacagtii ayaa la gaarsiiyey masaajidkaasi loogu sameeyo dawahabeyn waxaana loo qabtay xafladiina waxay u dhacday sidan iyadoo odayaasha deegaankaasi ay si kooban uga hadleen bulshada iyo arrimaha masaajidkaasi daawasho $2447 oo shilinka Mareykanka isla markaana masaajidka jiingada laga qaadayo gogashii masaajidkan ay ku jirto daaqadaha laga bedelayo dayactir masaajidka wixii kale ka dhimay masaajidka ay la soo gudbadana hadii la yiri annaga ayaa ka hawlgalay marka lacagta 830 ka wax ku wareejinay Cabdullaahi Xaaji Ciise oo ah dumiya diinta iyo qaafta degmada Garadag iyo Sheekh Baldiye degmada Garadag iyadoo ay joogaan cuqaashi degmada Garadag iyo odayaashii iyo culimadii iyo dhalinyaradii dhamaantood ومرو شيخي دقمدا قرادق دمانتود waxaanu u ducaynaynaa horta maxay ahayd inta lacagta soo dirtay iyo intii ku saaciday ay waan u ducaynaynaa in ilaahay waa khayr qaba ilaahay inuu ugu bedelo baan ugu ducaynaynaa caafimaad in alla ugu bedelo awlaad ilaahay ugu bedelo irsaaqad ilaahay ugu bedelo baan ugu ducaynaynaa wixii soo diray lacagta masaacadada masaajidka khayr الله سيو عافيمات الله سيو أولاد خير قبطة إلى هاي حسيو كان هاي نكوك إلى هاي بحياته أوكي هقدر سيو إلى هاي وحنا كبرنا ومجمع بيننا هاي إلى هاي بحياته عرك الله من مضى إلى هاي نقصيو حياته إلى هاي ما يتوي رزق واسع قبطة يعني إلى هاي كبرنا صلى الله عليه وسلم intaa kadibna waxaa ka hadlay qaar ka mid ah odayaasha deegaanka oo ku soo kooday kelmado baraarujin iyo wacyigelin oo ku socda bulshada wuxuuna u dhignaa hadalkooda sidan alxamdulillaah rabbil caalamiin ilaahay waxaanu ka baryaynaa inuu abaarta iyo ka jabiyo iyo cudurrada iyo biliya baasoo ilaahay ka faydo abaarta ilaahay ka jabiyo waa tabaalaysan tahay Soomaaliya weelay taayba waa laga wada qaylinayaa eebadi weel magaca Soomaaliya waa laga wada qaylinayaa abaarta ilaahay waxaanu ka baryaynaa inuu ka jabiyo waxaan halkan aan xafladan aan ku qabanay waxa lacag ka timi jahliyada reer Garadag oo uga mahad celinayna oo masaajidka lagu dayactiray gudaha ninkii dalkeennii maanta abaar baa ka jirta beedaamis baa ka jira gaashaa ka jirta mid walba ilaahay baa ina ka saari karay laakiin deeyaynaan usdhigane aan wax ustarno oo dadkeenna aan badbaadino tamarteenna itaalkeen kuwa beedaamiska iyo kuwa cuntada raba iyo kuwa ka wardoonka rababa annagu waa faydanahay ilaahay rabbigay baanu ka baryaynaa inuu dhacdiid inuu ku bedelo dhacdiid nabadgeliyo إلهي بلد كان بلد الآمن هينو كدو إلهي بلد برواقو هينو كدو إلهي نمعاده هو نسيي نقصان تيدا هينا كاي إلهي ساسا نكبر هينا نبضي برواقو إلهي بسم الله الحمد لله السلام لله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته marka hore hadal badan oo nasiir ilaahay ma jiro waxaanu u hambalyeynaa ama u ducaynaynaa dadka waxqabadkiisa u soo diyaar garoobay hantidoodana soo galiyay maskaxdoodana kaga soo shaqeeyay kuna soo wareejiyay ciddii ugu dhaweyd inay wax kaga qabanayaan mas'uuliyadii ugu fiicnaydna ay soo gaarsiiyeen aad iyo aad baan uga mahadnaqaynaa khayr ilaahay siiyo iyagana waxaan u leenahay iyagana dadaala qolada ururka ah ee halkan ka shaqeynaysa lafteedu
waxaan u filayaa waa qolo iminka hamad cusub la soo kacday متطوعين oo mutadawiciina waanu taageeraynaa idinkuna tixgeliya idinkuna si fiican u tixgeliya mas-uuliyaddani waa mid ay ka adag yihiinba way ka adag yihiin say u wareejinayaan waa muuqdaan iyagana intaa ayaanu leenahay masaajidkana ha joojinina soo wadanu leenahay soo wada waxqabadkiina annana sidoo kale weeye asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل ده حفظوا لو حفظوا لو تشد إلى ذي حفظ على كنا نقابته إنه وحويا ومساجد كنا يعتبر له قصة بين أيوه. مركه ورد سجور خير من المساجد ويحلك الشراط غير كإلى ذي وفي الدنيا والآخرة كي كشقيان ده التسولية تي العكس كده التسولية. قالنا أن مساجد قف يوقع هو مساجد مساجد ما عليه مساجد ده قاعد مظلة مرخات دقو برضو ده سواد القاسم دكتور يمكن مساجد كشقية عم واحد كشراط وحاول نسوي إلهي بعد خير ميرو دقي تصلنا قالنا وحنا الدين ده هو طبعا رمضان بيجي مكانك كشقية أيام تانا ما بس كده يعني طبعا رمضان بيجي كشقية أيام طبعا كابدون ولا ما لقى عاوية دي لا كده idinku waa ku mahadsantiin kuwa ku shaqeynayana waa ku mahadsan yihiin hawl isla qabashay wada asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu isugu nimiya xafladan oo ku saabsan masjidkii qadiimiga ahaa ee Garadag oo waxqabad laga qabanayo oo ay goobjoog yihiin maamulka waqafta iyo diinta Cabdullaahi Xaaji Xirsi oo ah sheekh albelediyada degmada cuqaashi degmada مسؤولينتي دقمة حوية فلنتي دقمة وأير كورتي كله دقمة وحن أنا ودعينا عد كستو مساعدة كسوق عن جيستي إني لهاي ساي جيسة وكمريو وحيدون يعني هل كي كسو صارين الدون كانه وحكونا سنة هاي وكبدلو وحكوا أنا ودعينا أورو كان جيدو وحقبت تيسن يو في فرعونين تيسن يو كرسولي تيسن كبر عبي وحيي دينت أو هالكيلو نقول نولش غدي أحد وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل ما شد وحويه ومساجد وقف كستوح الشباب إلهي سبحانه وتعالى سجع شركسينية. لبد ذلك ما يشوف كتير. إذا ومد قف وحلا صباحي مساجد كوا حجرينية إلهي سبحانه وتعالى رتيه وحلينا أجر وشركسيو. ومد اللي بعد الرقاقي وحويه سواح فري هوشي سوى حويه يكون وضعنا وحويه كشغيني لا حتى كعنت وهينا وركا جيدنا يجينا إلهي سبحانه وتعالى أجر كتاك سيان لأن هاي المكان إن شاء الله بيد الله كريم ساعتنا وصعنا يا دنا وبراميا وحويه مكان عد كصوح كشتى يعد كصوح كشتى سوا حنقول وحويه كعسل لين مساعد كيونا ساعة وورهيانا ووضعنا إن شاء الله بيد الله كريم. الحمد لله رب العالمين إلهي بمهده حفلة غالية ونسونمي أو أي كورة تيان نور كذا ليرة جيدة لعكتها أي وقت سو كسورية بتشوكة أو أي ما تهاد كورة تيان شيخ البلد كورة تيان عبد الله حاج حرسي وحنو أكنوا جم هاد علينا إلهي بمكورة مهده مركح اكتنا وحنو ما علينا تحلية دي أي كتم العكتني إلهي ميساك حسناتك وقدرهم إيجي سببت لهاي دليرنا إلى هاي وكا كسيو أجرية كسيو حسنات وعن